ummadda Soomaaliyeed meel kasta ha joogto dalka iyo gudihiisa iyo dibaddiisaba darajo kasta iyo mustawa kastana nolosha shacabka ha uga jirto madaxa ahaato ama muxuu ahay qof shacab ahaato waa in la ilaaliya qofka bini aadamka xuquuqdiisa khaasatan Soomaaliyan joognaa qofka Soomaaliga xuquuqdiisa waa in la ilaaliya ku xadgudub oo qofkiyo si xun loola dhaqmaahay ayada hadda waaba crime zaa'id ah oo aan caadi ahayn laakiin waxa muhiimadda ay tahay waxay tahay waxa uu qofkan mudan yahay ee loo qaban karo ee loo qaban waayo waxa ayadana sidoo kale la mid ah adoo qof dulmiyay oo dharbaaxay oo daqray oo dilay oo caayay oo aflagaadeeyay oo waxa qof ka tabar yar kii kula tabar walaal aad daranta iga tago ku dhaha laakiin qofka ka tabar yar ama si kasta ama physically ha kaaga tabar yaraado ama morally ha kaaga tabar yaraado inaad abuse garayso caayso ihaanayso physically waxay sahay waa dambi waa crime laga galaayo bini aadamnimada iyo shuruucda iyo dawladnimada iyo dadnimada intaba